waxa geeriyooday nin faqiir ahaay oo aanan haysanin waxaan ka ahayn dabeecad wanaag waxa uu kaga tagay xaaskiisa laba cunug Axmed waa cunugiisa ugu weyn waxa uu jiraa 5 sano waxa uu xifdisan yahay qaar ka mid ah aayadaha Qur'aanka Kariimka waxa xifdisay aabihiis oo tarbiyadiisa ku dadaalay Shayma waa gabadhiisa yar waxa ay jirtaa 1 sano waa maalintii tacsiyada aabihii waxa uu maqlay Axmed dhammaan dadkii ka soo qayb galay tacsiyada oo leh halkee ay ka heli doonaan reerkaani nolol waxa ugu sii daray oohinta hooyadii oo gabadha yaris ku leh waan dayacanahay aamus Axmed waxa uu soo istaagay hooyadii horteed waxa uu qabtay gabadhii yareed waxa uu ku dhahay aamus Shayma ilaahna ma dayici doone kadib markii ay dhamaatay tacsiyadii hooyadii ayaa cunugeeda waxa ay ku tirisay muruga leh sanad kadib waxa qorshaha ahaa in aan ku geeyo iskuul balse ma awoodo qarashkiisa waxaan la daalaa wixii aad cuni lahaydeen halkii aan ka keeni lahaa inta markii ay ku tiri wiilkeedii waa uu dhoole cadeeyay waxa uu ku dhahay hal orah oo kaliya waana ilaahna ma dayici doono waxa ka soo wareegatay geeridii aabihii muddo bil ah ilaa hadda qof uma soo galin si uu niyada ugu dajiyo waxa uu soo bandhigay Axmed hooyadii maadaama uu iskuul dhiganaynin in uu shaqeeyo si walaashiis iyo hooyadiis u biilo waa ay ka diiday hooyadii waxa ay ku qancisay in uu wili yar yahay waxa uu soo shaqeeyana ay waxba tareenin hooyadii ayaa waxa ay go'aasatay in ay geyso wiilkeeda iskuul ugana bixiso iskuulka xogaa yar ay ka soo hesho cida ay dharka iyo guryaha ay u soo nadiifiso oo diriska ah Axmed waxa uu galay iskuul qaar ka mid ah ardadii iskuulka ayaa waxa ay ku jeesjeesayaan Axmed sabab la xiriirta dharkiisa iyo buugaagtiisa uu gacanta ku haysto laakiin Axmed hadalkooda kor iskama saarin Axmed ayaa hooyadii waxa uu soo bandhigay qorshe ah in ay rooti ku sameyso gudaha gurigooda kadibna uu asaga qaado si uu soo iibiyo tuulooyinka la diriska ah Axmed maalintii koowaad waxa uu soo iibsamay dhammaan rootidii waxa uu ku yeeshay tuulooyinka macaamiil aad u far badan hooyadiis ayaa waxa uu ka dalbaday in ay badiso rootiga ilaah fadigiis waxa uu soo gabagaboobay waxbarashadiisii madrasada sanado kadib waxa iskuul ku beeray walaashiis asaga iyo hooyadii walaashii waxa ay ku noolaayeen nolol aad u qurux badan ilaa uu ka dhameeyo jaamacadda Axmed waxa uu bilaabay in uu shaqaaleysiyo dumar badan si uu iibiyaan rootiga hooyadii farsameyso sanadba sanad kadib mashruuciisi ayaa si balaaranayay walaashiina waxa ay ka qalin jibisay jaamacad waxa ayna noqotay dhakhtarad maalin maalmaha kamid Axmed waxa uu aaday tuulooyinka diriska la ah si uu saxiix ula soo galo tuuladaasi si shirkadiisa halkaasi rooti u geyso balse wuxuu ku soo arkay gudaha tuuladaasi maamo cunugiis oynaya aamusinaysa isla markaasna ku leh aamus wiilkaygiyo waan dayacanahay kadib dhimashadii aabaha Axmed waxa uu soo xasuustay maalintii geeridii aabihii asagoo da'daani ku sugan sidoo kale cunugani ayaa adeegsanay isla orahdii uu hooyadiis ku dhigi jiray Axmed kadibna waxa uu soo xasuustay xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa qofkii masaxa madaxa agoon ilaah dartiisna u masaxa waxa uu sugnaaday inta tin ah oo ay gacantiisa gaartay oo xasanaad ah waxa uu dhukaday cunugii yara waxa uuna siiyay hooyadiis lacag aad u fara badan si masruufka ciyaalkeeda iskaga bixiso hooyadii aad bay ugu faraxday waxa ayna tiri tani waa deen dushayda وانا بixi doona sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah waxa uu dhahay tani waa deen dushaada ah ficlan laakiin ha ii soo celin si cunugan yar ee faqiirka ah ee aabihii waayay garabkiisa istaag waxa laga yaabaa in uu dayacme inta kadib Axmed waxa uu laabtay xaafadiisa wuxuuna Rabbi ka bariyay in ay deentani noqoto mid qofba qof u sii gudubto si uu looga gargaaro mid walba oo gargaar u baahan